بسم الله الرحمن الرحيم waxaa maanta igu farxad ah inaan shacabweynaha Soomaaliyeed aan la qaybsado in ay Soomaaliya ay martigelin doonto shir caalami ah oo ka dhici doona bisha 1 October iyo 2 magaalada Muqdisho shirkaas oo loo yaqaano madasha wada tashiga Soomaaliya ay ka soo qayb galayaan ilaa iyo 40 dawladood iyo hay'ado fara badan oo daneeya Soomaaliya horumarkeeda dhaqaale horumarkeeda siyaasadeed iyo horumarkeeda amniba waxaan marka anaga aan maanta kalsoonida aan ugu qabanay Soomaaliya ee kamid tahay in amnigi aan wax ka qaban karno in dhaqaale ahaan aan ku filnaa in aan sharka noocaas aan qaban karno hab maamuuska Soomaalida maanta inuu horumar gaaray oo ay diyaar u tahay inay host gareyso ama ay qabato shirarka noocaana oo ilaa iyo kontameeyo ay wadano kala duwan ay ka soo qayb galayaan marka farxad bay noo tahay shirka labada bari u soconayo maalinta ugu horeysa waa maalinta ama technical farsamada ay wasaaradaha sida u qaybsan tubaha qaranka siyaasadda loo dhan yahay arrimaha bulshada horumarinta dhaqaalaha iyo amniga iyo cadaaladda maalinta labaadna waxaa noo hadli doona imaan doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha qaranka mudane xasan cali kheyre sidoo kale waxaa meesha imaan doona madaxda maamul goboleedyada wadanka iyo gobolka banaadir oo ayagana ka soo qayb gali doona marka waxaan rajeynaynaa inaad qof kasta Soomaaliya maanta uu hamigiisii iyo uu kor u qaado aan aragno inay dawladdanada ay waxaas shirka noocaas ee wadankeeda ku qabsan doonto